golaha guurtida Soomaaliland ayaa guddo hoosaadka shuruucda ee golahaas ku wareejiyay xeerka caymiska qaranka Soomaaliland ee xeer lambar 29/2021 fadhi ay yeesheen golaha guurtida Soomaaliland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golahaas Suleymaan Maxamuud Aadan xildhibaanada golahaasi dood ka yeeshay xeerka caymiska qaranka xeer lambar 29/2020 iyadoo laga saaray xeerkaas qodobka 5aad oo xildhibaanada golahaasi ay sheegeen inuu yahay mid aan habboonayn isla markaana ka hor imanaya xeerarka dalka u yaala. Suleymaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay in xeerkaasi loo gudbiyay guddo hoosaadka shuruucda ee golahaas si ay wax ka bedel iyo kaabis ugu soo sameeyaan xeerka caymiska qaranka Soomaaliland ee xeer lambar 29/2020. Shirguddoonka golaha guurtidu wuxuu guddidaas shuruucda u soo jeediyay in marka ay xeerkaas waajibaadkooda ka gutaan ay dib ugu soo celiyaan golahaas iyadoo ansixintiisana cod loo qaadi doono maadaama uu yahay xeerkii asaasiyay hay'adda maamul lahayd caymiska xeerkii asaasiyay wey guddi kale uu saarayna ma jirtee guddidii shuruucdu ciddii ay ku kordhisanaysana hayna soo weydiisan ciddii ay ku kordhisanayso ee naf la moodo hayna soo weydiisato ama golaha ha ahaado ama dibadda ha ka ahaado soona dedejiyo waynagu raftay baa la leeyahay hase yeeshee maadaama uu yahay xeer asaasi ah oo hadda la asaasayo cumar waa laga boganaya waxba la dedejin maayo ha laga bogto xeer aynu isdhaahno qaranku waa u cuntaba cabdulqaadirna waxaan leeyahay xeerka kii kooban waa u fiican xeer waa kii kooban haddii ay 8 qodob ku wanaag ku dhalayso iyo haddii laga kordhinayo guddina waynu saaray guddidaasaynu bal wixii ay ku kordhinayso Axmed Telefishin Gobonimo Hargeysa.